حب النبي سرى في القلب فازدهرا أنار لي دربي ونور البصر حب النبي سرى في القلب فازدهرا الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من تقي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك كل شيء هالك إلا وجهك لن تضاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك تضاع فتشكر وتعصى فتغفر أقرب شهيد وأدنى حفيد حلت بين النفوس وأخذت بالنواسي وكتبت الآثار ونسخت الآجال والقلوب لك مفضية والسر عندك علانية والحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت والخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله رؤوف رحيم. نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض وبكل اسم هو لك وبحق سائلين عليك أن تقيلنا في هذه الليلة وأن تجيرنا من النار يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد دب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. صدق الله العظيم. إخوتي وأحبتي في الله، إن شاء الله تعالى موضوعنا أما جلسدنا قابا إن شاء الله وحنكو إيجي دونا إن شاء الله تعالى إنا نكوكت سومين نولشن أدوية إنا نكوكت سومين in badan baa waxay ku kadsoomeen walaalayaal noloshan adduunyada ay joogeen markay xoogaa noloshoodu iyo xayaatadoodu yar
wanaagsanaato ayay hilmaameen wixii hortooda ahaa, markaasay ku kadsoomeen. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu qur-aanka ku leeyahay wadakir waani nabi maxamedow fa ina dikraa waanadu tanfacu lmu'miniin. mu'miniintay anfacaysa. waanadu waxay anfacdaa qofka iimaanka leh, qalbigiisu uu iimaanku ku jiro nuur leeyahay, qofkaasay waanadu anfacaysa. wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbuduun baa ilaah yidhi. insiga iyo jinniga ma aanan abuurin ilaa liyacbuduun, liyacrifuun, inay i gartaan oo markaasna i caabudaan. wey maa uriidu minhum min risqin wamaa uriidu an yudcimuun. risqi kama doonayo, inay uquudiyaanna ma doonayo. ina allaha huwa arasaaqu du lquwati lmatiin. ilaahay baa rasaaq ah, makhluuqa uu abuuray oo dhan asagaa irsaaqayo. axadka asagoo aan weligiiba baahanin weeye, wixii asaga ka soo haroo dhanna ay asaga u baahan yihiin. waxaa ilaahayna xusuusinayaa subxaanahu wa tacaala inaan garanno walaalayaal noloshan adduunyada ah ama xayaatada adduunyada inta aanu joogno waa in yar. xikmadana laga doonayana waxa weeye inaan ilaahay garanno, waxa noo dhoweynayana aan ku dadaalno. waa inuu qofku fiiriyo waxa uu soo dhaafay, waqtiga uu soo dhaafay, axwaasha uu soo maray, xaaladda uu hadda ku sugan yahay, iyo waxa hortiisa oo imaan doona. rasuulku sala allahu calayhi wasalam xadiid muslim iyo bukhaariba ay warinayaan oo saxiixeynka ku sugnaaday, wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam nooga sheekeeyey oo ka waramay 3 nin oo reer bani israa'iil oo ilaahay imtixaamay subxaanahu wa tacaala. ina 3 fi bani israa'iil abrasa wa aqraca wa acmaa araada allahu subxaanahu wa tacaala an yabtaliyahum. 3 nin oo reer bani israa'iil ah, mid wuxuu ahaa mid baras qabo, cudurkan baraska la yidhaahdo ee jirka intuu ku dhaco jirka dhan caddaynayo, maqaarkuu yacni caddaynaya, qofka jirkiisoo dhan baa isbedelayo, aada buu u falxumaanaya. waa cudur xun weeye barasku. iyo aqrac, mid aan timo lahayn oo madaxiisu wax timaha uusan qabin, yaana timuhu waa ziino, waa qurux wey. wa acmaa, mid indhala oo araggiisii waayey oo aan indho qabin. 3daas qof ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu doonay inuu imtixaamo. araada allahu an yabtaliyahum, ilaahay inuu imtixaamou doonay. waa inay cibro u noqoto, tusaale u noqoto dadka kalea la doonayaa. markay dhegaystaan oo ay hadalka nabiga maqlaan calayhi salaatu wasalaam, nabigu saadiqulmasduuq buu ahay, qof la arkay inuu ismiisaamaa la doonaya. nicmada ilaahay ugu nicmeeyey inuu garto, waqtiga uu soo dhaafay inuu garto, xaalada uu ku sugan yahay inuu fiiriyo, markaana ilaahay uu ku shukriyo. wabacatha allahu ilayhim malaka, malag baa ilaahay usoo diray. fa ata alabrasa, kii baraska qabay buu u imaaday, yuu u tegay malagii. faqaala wuxuu yidhi ayu shayin axabu ilayk, wax lagu siiyo maxaad ugu jeceshay? faqaala wuxuu yidhi lawnun xasanun wa jildun xasan, waxaan ugu jeclahay wax la isiiyo midab qurux badan iyo maqaar qurux badan inuu ilaahay isiiyo, inuu iga tago
wa an yadhaba canii maa yaqdaraya annaasu dadku waxa ay igu yasayaan oo xanuunkan jirkayga dhan badele iyo jirkayga oo dhan cad in ilaahay iga bi'iyo wax la isiiyo taasaan ugu jeclahay. adduunyada wax la isisiiyo ama qofku waxa ugu jecel yahay waa caafimaad wey. markuu caafimaad helo unbuu wax kala xusuusanaya markaa nicmo kale in la siiyo. famasaxa almalaku biyadih, malagii gacanta ayuu sidaa u mariyey ninkii, waxaa ka tegay wixii jirkiisa ku sugnaa ee caddaanta ahaa baa ilaahay ka qaaday. fa ucdiya lownan xasanan wa jildan xasan, midab aada u qurux badan oo dhalaalaya iyo jildi quruxsan baa la siiyey. faqaala wuxuu yihi malagii haddana ayu lmaali axabu ilayk, xoolo maxaad ugu jeceshay, wax sheego. faqaala wuxuu yihi alibil, geel baan ugu jeclay. fa ucdiya naaqatan cusharaa, hal baa la siiye dhalayso oo 10 bilood ah, hal 10 bilood ah oo dhalmadeedii wax yar ka dhiman tahay ayaa la siiyey. geel 12 bilood buu ku dhalaa, hal 10 bilood oo dhalmadeediiba wax yar ka dhiman tahay ayaa la siiyey. faqaala wuxuu yihi malakii baaraka allaahu laka fiiha, allah kuu barakeeyaasha. uma ata alaqrac, kii tima la-aanta ahaa alla u xiirka ahaa buu u tegey. faqaala wuxuu yihi ayu shayin axabu ilayk, wax lagu siiya maxaad ugu jecesha. qaala wuxuu yihi shacrun xasan, timo wanaagsan inuu ilaahay siiyo, taasaan ugu jecla. famasaxa almalaku biyadihi fa ucdiya shacran xasanan, timo aada u qurux badan baa usoo baxay markuu malagii sidaa gacanta u mariyay. faqaala wuxuu yihi ayulmaali axabu ilayk, maalna maxaad ugu jeceshahay. faqaala wuxuu yihi albaqar, lo' baan jeclahay anugu, xoolo aan dhaqdo lo-daan ugu jeclay. fa ucdiya baqaratan xaamilan, sac dhal ayaa la siiyey. faqaala wuxuu yihi malagi baaraka allaahu laka fiiha, allaha kuu barakeeya sacaas. uma ata alacmaa, kii indhaha la-aa buu u tegay haddana. faqaala wuxuu yihi malagii ayu shayin axabu ilayk, wax lagu siiyo maxaad ugu jeceshahay. faqaala wuxuu yihi an yarudda allaahu ilaya basarii, inuu ilaahay aragaygii ii soo celiyo, indhaha ii furo, oo fa ubsira bihi nnaas, dadka aan arko oo wax walbaba arko, taasaan ugu jeclahay wax laysiiyo. famasaxa almalaku biyadihi, gacanta ayuu sidaa u mariyey. fa absara kula shay, wax kastuu arkay indhihiisii baa u furmay. faqaala wuxuu yihi malagii ayulmaali axabu ilayk, maal maxaad u jecesha. faqaala wuxuu yihi alganam, ari baan jeclahay. fa ucdiya shaatan waalida, shaatan waalida, ri dhalaysaa la siiyey. faqaala wuxuu yihi malagii baaraka allaahu laka fiiha, ridaa allaha kuu barakay. uma qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam, nabigu wuxuu yihi markaas fakaana lihada waadin min alibil walihada waadin min albaqar walihada waadin min alganam. dee waa imtixaane, xoolo imtixaan looga jeedo wey. ninkii hasha dhalaysa hadda la siiyey, isla markii wax yar kadibbo waadi geel uhu helay, geeliisii meel qaadhow ma leh, faradu ka batay. kana loodiisii baa meel kastaba buuxisay, kana arigiisii baa meel kasta buuxiyey. uma bacatha allahu ilayhim almalak, malagii baa ilaahay usoo diray haddana. waa la imtixaamayaa. shalay
way yacni nin walba cillad buu qabay oo cillad buu qabay, faqrina wuu hayay oo waxay haysteen oo ka naxayeen ma jirin. maanta qof la arka wuu nicmaysan yahay, jirkiisa ilaahay baa kamilay, meel ka maqan ma jiro, nicmana ilaahay baa ugu daray, xoolaa la siiyey, waa qani mid kastaba. malagii baa soo laabtay, fa ata alabras, kii baraska qabay buu kasoo bilaabay, kii baraska qabay buu u yimid bisuuratihi wa hay-atihi alula. waa nin socdo oo siduu asaga awal ahaan jiray, nin baras qabo oo jirkiisoo dhan wada cad yahay oo miskiin oo rafaadsan asagoo ayuu u yimid, bisuuratihi wa hay-atihi buu ugu yimid. faqaala wuxuu yihi rajulun miskiin, nin miskiin ahna aada u taag daran, xaaladeeda waa arkaysaa saan u eg. inqadacat biya alxibaal, musaafir baan ahaayo sahaydii baa iga go-day, falaa balaaqa lii alyowm, maanta meeshii aan u socday ma gaarayo ilaa billaahi, inuu ilaahay ii kaalmeeyo, uma bika, adiguna aada ii kaalmaysa mooyaane. as'aluka biladii acdaaka allawna alxasan walmaal baciiran ataballaqu bihi safarii, ilaahayga midabka quruxda badan ku siiyey, caafimaadkan kuugu nicmeeyey, xoolahana kuugu daray oo qaniga kaa dhigay, waxaan ku weydiisanayaa hal neefoo geelaysay, hal riti keliyaysay, ataballaqu bihi safar, safarkaygaan ku gaaraya, waan ku jid maray. ninkii maxay noqotay jawaabtiisii? faqaala wuxuu yihi alxuquuqu calaya kasiira, xuquuq fara badan baa laygu leeyahy, dad badan baan wax siiyaa oon gacanta ku hayaayo waxba igama go-an. alxuquuqu calaya kasiira, xuquuqdu way gu badan tahay. nin kastoo maanta hanti leh oo xoogaa iska ladan, haddii waxa la weydiiyey muxuu odhanayaa? dee xoogaa inaad shilimo leh waabad maqashay, laakiin waxa aan kharash bixinayo warba u haysaa buu leeyahay iyo intaan dad gacanta ku hay umbilay. maa sha allah, alxuquuqu calaya kasiira, xuquuq badan baa laygu leeyay, dad badan baa wax iga sugayay, intaasoo meelood baa wax layga rabaa, intaasoo biil baa ii imaanaya, waxba igama go-aano. faqaala malagii wuxuu yihi kaanii acrifuka, inaan ku garanayaad moodaanayo. ninkii uu isbedelayba waa iska sidiisi, laakiin hadalkii u bedelay, kaanii acrifuka, inaan ku garanayaad moodaa. soomaada ahaan jirin nin faqiir ah, abrasa oo baras qabo, waxba aan haysanin, soo ilaahay kuma caafinin oo maalna kuma siinin. faqaala wuxuu yihi laa, may, qofkaad moodaysa ma ihi, waad igu khaldantay buu yihi, may, inamaa waristu kaabiran can kaabirin buu, xoolahan wax hadda isoo galay maaha, nin weyn baan ka dhaxlay. aabihii buu sheegaya, ninkaa weynna nin weyn buu kasii dhaxlay, waa awowgii, weligaa nin faqri maana soo marin buu, inamaa waristu kaabiran can kaabirin buu. waxba kama soo wareeginago, malagii shalay ilaahay usoo diray ee u duceeyey ee hashana siiyey buu wuxuu ku leeyahay nin weyn baan ka dhaxlay xoolahan agarkiisa, aabbahay baan ka dhaxlay, isaguna aabihii buu ka dhaxlay, awowgiisuu ka dhaxlay, weligaanaba reer qani aan hayn. geelaas ad arkaysa waa xero fadhi weeye, weligii xeradaanada ma marin. ina alinsaana lakafuur, insaanku ilaahay nicmadiisa wuu ku kufrinayaa markiiba. wa qaliila min cibaadiya shakuur, in yar baa addoommahayga shukrinaya, nicmada ku shukrinaya ilahay le. qaliila maa tadakaruun, in yar baad waansamaysaan baa ilahay le. wax kastoo la idiin sheego, in yar baad waansamaysaan, wax garanaysaan. ina alinsaana khuliqa haluuca, ilaahay wuxuu yihi insaanka waa la abuuray, khuliqa waa la abuuray haluucan xaal u yihi. haluuc macnihiisu waa maxay? aayaddaa fasirkeeda aayadda ka dambaysaa fasiraysa, idaa masahu sharu jazuucan
وإذا مسه الخير منوعا هلوع معنيه ساسو إذا مسه الشر هذا الشر تابط جزوعا وارقحيا إلهي ربا أي هيستو وحنا أي هيو إلهي وارقحيا وإذا مسه الخير هذه الله نعمه أو وحلسيه أو حقا الله رانادنا منوع مي حبا ما هيو حميه لي كرو marka ilaahay nicmadiisa kuma shukrinayo insaanku faqaala almalaku malagii wuxuu yidhi fain kunta kaadiban been haddaad sheegayso fasayaraka allahu ilaa maa kunta sidaadii allah kugu celiyo waana iskaga tegay haddaad been sheegayso sidaadii allah kugu celiyo ثم أتى الأقرع كيتي ملا أنت هنجري بوتك على صورته وهيئته سيدي هنجري أسوأ وأك فقال أنا رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك نين مسكين أنا هاي سهيدي بايقا قوضي meeshii aan u socday maanta ma gaari karo waxaan kuu weydiisanayaa ilaahaygii ku siiyey as'aluka biladii acdaaka asuurata alxasana suurada wanaagsan ee quruxdan kuu abuuray wa acdaaka almaala maalka ku siiyey baqaran hal neef oo la isid aan sahay ka dhigto faqaala lahu mithla maa qaala alawal hadalkii kii hore ugu jawaabay boosna ugu jawaabay faqaala wuxuu yidhi alxuquuqu calaya kasiira xuquuq badan baa laygu leeyay waxba ma bixin karo faqaala wuxuu yidhi malagii kaanii acrifuk inaan ku garanayaad moodaa soo ninkii sida ahaan jiray maad ahayn miskiinka ahaa ee aan timaha lahayn ee faqiirka ahaa soo ilaahay kuma caafinin xoolana kuma siinin maya buu yidhi inamaa waristu kaabiran can kaabirin faqaala almalaku wuxuu yidhi fain kunta kaadiban fasayaraka allahu ilaa maa kunta haddaad been sheegayso sidaadii allaha kugu celiyo uma ata alacmaa kii indhaha la-aan jiray buu u tegay calaa suuratihi wa hay-atih asagoo nin indhada oo gacanta la wado la hogaaminaya ayuu u tegay markaasuu yihi rajulun miskiin nin miskiin oo tabardaro maa qad inqadacat bi alxibaal sahaydii baa iga go-day falaa balaaqa lii alyawma ilaa billahi uma bik meeshii aan doonayay ma gaari karo maanta inuu ilaahay ii kaalmeeyo mooyaane adiguna aada ii kaalmayso mooyaane waxaan ilaahay kugu weydiisanaya ilaahayga ku caafiye maalka ku siiyey indhaha kuu furay neef aryahan shaatan baan kuu weydiisanaya shaatan hal neef faqaala wuxuu yidhi qad kuntu acmaa ninkii indhaha la-aan jiray wuxuu yidhi qad kuntu acmaa nin indhala baan ahaan jiray faradda allahu ilaya basari ilaahay baa araggayga ii soo celiy fa acdaanii hada almaal maalkan ilaahay baa i siiyey fakud maa shi'ta intaa rabta ka qaado waa kan argi intaa rabta ka qaado wallaahi laa ujhiduka maa akhadta fi llaahi kugu dhibi maayo daa ku odhan maayo wixii ilaahay dartii aad u qaad waxaad u baahan tahay ood maanta qaadatay kugu dhibi maaye qaado intaa rabta ka qaado faqaala wuxuu yihi malagii amsik calayka maalak maalkaaga iska hayso fa inama btuliitum maalkaaga hayso ooma baahniye waa laydin imtixaamayo fa inama btuliibtum waa laydin imtixaamay fasukida lisaaxibayka wa rudiya cank labadaadi saaxiib waa loo cadhooday ilaahay baa u cadhooday adigana ilaahay baa kaa raalli noqday maalkaaga hayso adduunyada walaalayaal waa cajiib qofka xaalad baa marayso adduunyada xaaladeedu way isbedel badan tahay laakiin qofku waa inuu garto isbedelka adduunyada isrogrogaysa waa inuu ilaahay nicmadiisa ku shukriyo caafimaadkuu shalay haystay
maalka uu shalay haystay, nicmadii uu ku jiray maanta hadduu waayo waa inuu ilaahay ugu shukriyo. hadduu dhibaataysnaa ilaahay dhibaatada ka bixiyo inuu gartaa la doonayo. tacaraf ila allahi fi raqaa yacrifka fi shid. markaad nicmaysan tahay ilaahay nicmadiisa garo ku shukri, markay dhibaato ku qabato ilaahay baa kuu gargaaraya, kaasuu ilahay dhibka kaa saaraya. xadiidka muslim iyo bukhaari baa wariyay. waa cibro walaalayaal, waa cibro inaan ku cibro qaadano wey. imaamu lbaqawi wuxuu sunankiisa ku wariyey nin la yidhaahdo xaadib ibnu abi baltaca. xaadib ibnu abi baltaca alansaariy nin aada u cibaado badan buu ahaa, laakiin ninkaas marka hore dee nin wanaagsan buu iska dhigayay, laakiin masaajidkuu ku jiri jiray. laakiin markii dambe adduunyaa fitnaysay. ibnu xajar ayaa kitaabkiisan yani tamyiisu saxaaba ayuu ku tilmaamayaa. wuxuu leeyahay xaadib laba nin bay ahaayeen. nin wanaagsan buu ahaayoo beder ka qayb galay, ma aha ninka xaadib binu baltaca la ohan jiray, laakiin kan xaadib ibnu abi baltaca day ku kala bedelan yihiin. saasuu ley ibnu xajar, aniga adduunyadu fitnaysay way. ninkaa nin faqiir u ahaa, rasuulku u yimi calayhi salaatu wasalaam, wuxuu rasuulka ilaahayow faqri ayaa aada ii dhibay, wax aan haysta ma jiro, xataa jamaacadii baan imaan la-ahay, gurigii baan kasoo bixi lahayo, aniga xaaskayga hal mara keliyaan haysanaa oo kolba mid baa ku tukado, inaad ii ducaysaan doonay. markaasuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam iska daabura, bal yani xaadibow adduunyada iska dha. maya rasuulka ilaahayow ii duce, ilaahay ii bari, haddaan adduunye ilaahay isiiyo xaqa ay leedahaan marinaya, wixii xuquuqa waan ka bixinaya. markaasuu rasuulku u duceeyey sala allahu calayhi wasalam. ninkaa ari yar baa soo galay, ari yar buu helay, arigii unbaa batay un, ilaa uu markii dambe magaaladii madiinu deganaaye, magaalada korkeeduu degay. salaadihii jamaacada inuu qaar imaan waayo bilaabay. marka hore xamaamulmasjid baa loo, masaajidku markasta imaan jiray, masaajid ka baxa ma ahayn. marka salaadihii buu qaar imaanayaa, qaarna waa maqanya. markii dambe waxay noqotay arigi markuu aada u batay in magaaladii uu ka yaro durkay, arigii uu ka durjiyey, uu ka guuray, ee salaada jumcada keliya uu soo xaadiray. isbuucii jumcada bas unbuu imaanaya. wax yar kadib jimcadiina waa ka go-ay, laanna xooluhu markay bataan magaalada inaad ka fogaato wey. xoolaa ilaahay kuma shaqeeyay ninka, nin qaniyo aada u xoolo badan buu noqday. faanzala allahu aayata zakaat, zakadaa soo degtay markaas, la waajib yahay, la farad yahay. rasuulku calayhi salaatu wasalaam laba nin buu diray oo wuxuu yihi zakada soo ururiya, dadka xoolaha ka soo ururiya. ninka xaadib ibnu abi baltacana ka soo qaaday zakadii. xaadib baa loo tegay, dadkii uu nabigu soo diray calayhi salaatu wasalaam zakada qaadayay baa u yimid. xaadiba waxaa la yihi zakaa lagaa doonayaa, oo zakadu maxay tahay buu yihi, ii sheega qiimaheedu. wax intee dhan waa loo sheegay, intaasaa xoolaha ka waajibaysa. faqaala wuxuu yihi haadihi jizya ow ukhtu ljizya. jizya waa koodi ama waa canshuurta laga qaado gaalada muslimiinta ku dhex nooleyd ee mucaahadka iyo dimiga la ohan jiray, ee muslimiinta dhexdooda ku jiray, yaa canshuur laga qaadaa, koodi baa laga qaadaa. zakadii ilaahay uu waajibiyey wuxuu ku tilmaamay waa jizyi, waa nalagu dhacayaa. labada nin markaa way isaga soo tageen, zakada qaadayay masaasaas ha way isaga soo tageen. bal marka hore wuxuu ku yidhi, bal isoo mara, waan kasii fikirayaa isoo mara.
hadalkaasna wuu yidhi markii dee dadkii kale dhan xoolihii ay ka soo qaadeen markii ay soo noqdeenna sidiisii unbuu iska ahaaday, waa laga soo tegay. labada nin madiinay kusoo dhaabteen, rasuulkay u imaadeen sala allahu calayhi wasalam. mar alla markay kusoo baxeen nabiga labada nin intayna u warramin ay soo socdaan yuu nabigu yihi yaa wayxa Thaclaba, yaa wayxa Thaclaba, walla Thaclaba wuu hoogay buu nabigu calayhi salaatu wasalaam. saddex goor buu ku celiy. dana waa loo waxyooday nimankaan uma baahnaba inay u warramaan dee. ninkii markii uu nin qaraabo ay ahaayeen oo magaalada deganaa ayaa markuu hadalkii maqlay waxaa soo degtay isla markii markuu nabigu sidaa yidhi aayad baa soo degtay fi suurati tawba, wa minhum man caahada allaha lain aataana min fadlih lanasadaqanna walanakunanna min asaalixiin. dadka waxaa ka mid a mid ilaahay ballan u qaadayo oo ilaahay ballan iyo cahdi la gelayo, ilaahayow haddaad maal i siiso maalka waan bixin, meeshii mudnayd oo munaasabka ahayd baan ku bixin, dadka wax sadaqaysanayo o wanaagsan baan ka mid noqon. falamaa aataahum min fadlihi bakiluu bih, marka ilaahay fadligiisa ay heleen oo xoolihii la siiyeyna bakiluu bih, way ku bakayleen, way jeesteen, iimaankii bay ka jeesanayaan. aayaddaa markay soo degtay oo rasuulku u sheegay asxaabtii uu ku dul aqriyey, nin ay qaraabo ahaayeen ayaa tegay, ninkiibuu u tegay war wuxuu yihi waad halaagsantay, aayado qur-aana ilaahay kugu soo dejiyey, toobad waxaa kugu dhow hadda inaad rasuulka u tagtee, meesha ka tag buu yihi. markaasuu xoolihii zakada oo dhan buu xoolihiisu intuu kasoo qiimeeyey ayuu yimid, soo kaxeeyey, markaasuu rasuulka u yimid. rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yihi ilaahay uu ii diiday inaan zakada kaa aqbalo, zakadaada ma qaadayo. halkiiba oohin la fariistay, uu iska noqday. maxay u taraysaa dee oohin waxba uma taraysa. asagoo sidii ku sugan oo aan zakadii laga qaadan iyuu nabigu dhintay sala allahu calayhi wasalam. sida abubakar baa khilaafadii qabtay. markuu sida abubakar khaliifka noqday ayuu haddana zakadii keenay. sida abubakar buu u keenay zakadii. markaasuu sida abubakar wuxuu ku yidhi rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuu diiday inuu zakada kaa qaado, sidaasuuna ku dhintay. wax uu rasuulku diiday calayhi salaatu wasalaam aniga ma qaadayo. sida abubakarna waa diiday. sida cumar baa haddana khilaafadii qabtay, sidoo kaleu ku yidhi sida cumarna wax rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu diiday, sida abubakarna uu diiday, anigu ma qaadayo uu ku yidhi. famaata fi khilaafati cuhmaan ayuu dhintay, soo wax zakadii ka qaaday u jiri. cuhmaan uu zakadii ka diiday ayuu sidaa ku halaagsamay. ninka maxaa halaagay walaaleya? adduunyadii baa halaagtay. hadduu ilaahay nicmadiisa garan lahaa, dhibaatadii uu ku jiray hadduu garan lahaa, dhibaatadaa ma ayna qabsateen. dhibaatadaa ku dhacday ma ayna qabsateen ninkaas. qofku waa inuu garto xaaladii uu shalay ku sugnaayo uu soo maray, waa inuu xusuusto walaalayaal. ilaahay nicmadiisa waa inuu garto markuu ilaahay u nicmeeyo.
xasanu basri baa oran jiray raximahullah, taabicigii weynaa, laa taktar bimakaanin saalixin falaa makaana afdala min aljanna faqad laqiya fiiha abuna aadam maa laqiya. meel jannada ka wanaagsan ma jirto. meel wanaagsan haddii aada ku sugan tahay, makaan wanaagsan haddaad joogta, ha ku kalsoomin. ilaahay nicmadiisa ku shugri, cibaadada badi. jannada meel ka wanaagsan ma jirto. jannada meel ka wanaagsan ma jirto. abuna aadam wuxuu la kulmay jannada dhexdeeda, wuxuu kula kulmay maa laqiya. ilaahay jannaduu geliyey, isagiiyo zawjadiisii xaawo halkaa ku nicmaysto iska joogaa ilaahay yidhi. geedkaana ha u dhowaanina, shaydaan baa fidneeyey. xikma ilaahiyay ahayd, laakiin shaydaankaasaa sabab looga dhigay. geedkii bay taabteen, markaasaa dhulka loo soo dejiyey. falaa makaana afdalu min aljanna faqad laqiya fiiha abuna aadam maa laqiya. walaa taktar biru'yati saalixiin, dadka wanaagsan aragtidooda iyo la kulankooda ha ku kadsoomin. falaa shaksun acdama min almustafaa sala allahu calayhi wasalam. nebi maxamed axad ka weynaa oo ka fadli badnaa ee makhluuqaho ilaahay abuuray ma jiro. falam yantafic bihi alkufaaru walmunaafiquun. munaafiqiinta iyo kufaarta kumayna intifaacin. rasuulka calayhi salaatu wasalaam munaafiqiin baa la joogay, nabiga diiday oo iimaanka yani afkan shahaadada ku dhawaaqaya, laakiin qalbiga uusa jirin. gaalo ayaa joogtay, ma aysan rumaynin. axad ka fadli badnaa ma jira. nabi maxamed bay arkeen calayhi salaatu wasalaam. aragtidiina waxba uma tana, laanna mayna rumaynin. walaa taktar bikatrati alcibaada, cibaado fara badanna ha ku kadsoomin. miisaanku maaha cibaado badan inuu ilaahay ku aqbalo weeyaan mooyaan, wax kale ma cibaado badan ma. fa ina ibliis bacda muksihi fi lcibaada, markuu wax badan cibaado uu waday ee malaa'igta uu ka mid ahaa, muqarabiinta uu ku jiray, fandur maadaa laqiya, muxuu la kulmay? lacanada ilaahay baa ku dhacday, madruud buu noqday min raxmat illah. walaa taktar bikatrati alcilmi, cilmi fara badanna ha ku kadsoomin. ha ku kadsoomin cilmiga. di ilaahay aqoon ku siiyo ood cilmi badan leedahay, cilmiga ha ku kadsoomin. fa ina balcaam ibnu baacuura, balcaam binu baacuura ninkii la yidhaha, nin caalim uu ahaa. bacda nadrihi fi lawxi lmaxfuud fandur maada laqiya. nin ilaahay cilmiga daahirka iyo baatikaba isugu daray buu ahaa. ilukashfi buu ahaa, looxu maxfuud kuu fiirin jiray, musaa u fiiri. fandur maada laqiya. markii dambe muxuu la kulmay? iimaan la-aan buu ku dhintay, sida ilaahay uu nooga qisoonayo fi suurati alacraaf. watlu calayhim naba aladii aataynaahu. fi suurati alacraaf baa ilaahay nooga qisooday, iimaan la-aan buu ku dhintay. haddii ilaahay kuu nicmeeyo, nicmada ha ku kadsoomin. ilaahay ku shukri subxaanahu wa tacaala. waa imtixaan. haddii lagu nicmeeyo, nicmada waa imtixaan. hadday dhibaato iyo ku qabsatona waa ibtila, waa lagu fiirinaya. bal inaad sabarto, haddii lagu nicmeeyona inaad shukrisaa lagu fiirinaya. khayrka iyo shartaba waan idinku imtixaamaynaa baa ilaahay leeyahy. adduunyada khatar weeye walaalayaal. waxay kutubta soo qaadaan, qisaska kusoo qaadaan nabiyullaahi ciisa
calayhi wacalaa nabiyina afdal salaatu wasalaam ayay nin isi soo raaceen, way baxeen, safar bay u baxeen, 3 xaboo kibis ana sahay bay u qaateen, 3 muufay qaateen. raashinkaas markaan gaajo aan gaajoono ayaan cuni doonaa buu ku yidhi nabigu. meel baa la tegay, markaa nabigu salaad buu galay, uu tukanayay. ninkii uu sugi waayey marka intuu nabigu tukanayay, 3 xabay ahayd kibistii, mid buu cunay. salaadii buu ka baxay nabi ciise, markaasuu yihi noo keen raashinkii. 2 xabuu soo dhigay. faqaala wuxuu yihi ayna thalith, tii 3aad aawe? markaasuu wuxuu yihi maya 2 unbay ahayd rasuulka ilaahay, tu 3aad anigu ma arag. tu 3aad ma jirin, 2 unbay ahayd. 2 unbay ahayd. way baxeen, marka way socdeen. waxaa hortooda uu ku arkay rasuulku baasha la yidhaahdo dabiyada ama eelada. markaasuu u yeedhay nabi ciise, xabad buu u yeedhay, way u timid. dee nabi ilaahay buu ahaa. eeladii way iska soo istaagtay, way gowraceen, waa la gowracay, way karsadeen, way cuneen. markay cuneen oo hilibkeedii ka dhargeen kadib ayuu hilibkeedii intuu lafaheedii isku harageedi saa isugu soo ururiyey, ayuu yihi ilaahay idankiisa noolow. eeladii way iska istaagtay, way kacday. xayla mucjizaadkii nabi ciise la siiyey maxaa ka mid ahaa? inahu yuxyi lmowta, kuwa dhintay buu nooleyn jiray. faqaala wuxuu yihi nabi ciise, ilaahay baan kugu dhaariyey, ku tusiyey mucjizadaasi oo eeladii aanu qabnay oo hilibkeeda cunnay ilaahayga nooleeyey baan kugu dhaariyey. ayna raqiifu thalith, aawa tii 3aad? faqaala wuxuu yihi maya rasuulka ilaahay oo ma arag anugu 3aad, 2 unbay ahayd. bas ina keen buu yidhi. weli ayay imaadeen soconaya. gacanta ayuu sidaa u qabtay, markaasuu rasuulku webigiibuu dul mariyay. ninkii biyihii bay iska dulmareen, way ka baxeen. webigii markay gudbeen oo iska kormareen ee dhinaca kala tageen, iyo wuxuu ku yidhi ilaahaygi mucjizadaa ku tusiyey baan kugu dhaarinayaa. ayna raqiifu thalith, aawa kibistii 3aad? rasuulka ilaahay oo ma arag buu yihi maya. markaasay tageen meel qaryo ahaan jirtay oo iska cidlo ah agteeda. 3 dhagax oo waaweyn oo dahabaha yaalla, oo mid walba aada u weyn yahay. dahab baan helnay oo waakan dahabkii baa loo tegay. waa 3 xabo, ayaguna waa 2. in la qaybsadaa loo baahan yahay. rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam, anaa noo qaybinay, kan adaa iska leh, kanna anigaa leh. kan 3aadna xabadii 3aad, kibistii 3aad ninkii cunay baa iska leh. faqaala ana akaltu ya rasuul allah, anaa cunay buu rasuulka ilaahay. mucjizo kastoo la tusiyey oo intaa ilaahay lagu dhaarinayay inuu sheego waa diiday. ma arag buu la soo taagna. laakiin markuu dahabkii arkay, markaasuu sheegay, wuxuu yidhi anigaa cunay rasuulka ilaahay. adiga miyaa cunay tii 3aad? haa. 3duba qaadaba, adaa iskale. wuuna ka tegay rasuulku calayhi salaatu wasalaam. ninkii asagoo 3dii dhagaxee dahabkaa meeshii la hayo si uu yani u qaadan garan la, 3 nin oo socotaa u timid. waxay yidhahdeen war dahabka yaal anigaa leh, anaana dahabkayga hayga taabanina. de waa 3 nin ama 3 nin buu iska celin karaa. waa la dilay asagii, meeshaa lagu dilay. dahabkii bay ka qaateen 3doodii.
waaba ku filan yahay marka hadday qaybsadaana waa 3 nine markaas waxay yidhahdeen dahabkan waa nagu filan yahay laakiin magaalada tan nagu dhow cunto aan u doonano nin bay yidhahdeen cunto noo raadi kan cuntadaas soo qaadano noo keento cunno kadib ayaan dahabka qaybsanaynaa mid baa cuntadii raadiyey kii cuntada intuu ku maqnaa labadii kale way tashadeen waxay yidhahdeen ninka markuu noo imaado aan dilno labadeenna aan qaybsano kiina wuu fikiray oo wuxuu yidhi cuntada intaad sun ugu darto labadooduba ha dhinteena adigu keligaa qaado kiina go-aankaas cuntadiibuu sun kusoo daray labadana way u diyaar garoobeen oo markuu soo istaagaba in la dilo ninkii markuu cuntadii asagoo wado uu yimid ee cuntadii saa u dhigayba waa lagu dhuftay nin la gaadayo oo haddee meesha ku dhacay waa la dilay labadoodii maxay yidhahdeen dee xoolihii hadda annagaa bayeelanay ninkiina tegi dee aan qadayna markaan qadada ka dharinaa waxayna qaybsanay labadiina cuntadii bay la fadhiisteen mar alla markii afka saaray waa ku garab dhaceen ayagu 4 ninba meeshay ku dhinteen waxay leedahay qisadu dib buu usoo maray nabi ciise haddana soo socda 3 nin iyo kii hore 4 oo dhimatay mayda iyo dahabkii oo meeshiisa yaalla weli markaasuu yidhi adduunyo xaaladeedu waa saa sumun qaatil wey addunyaa sumun qaatil adduunyadu waa sun qaatila qofkii jeclaado oo raadiyo sidaa unbay u dilaysaa saas weeye adduunyada xaaladeeda lagama dhergeeyo nin yool ka gaaray adduunyada oo intuu ka dhergey anigu waa igu filan tahay yidhi lama arag adduunyada dharagteedu waxa weeye inaad ilaahay ku xusuusato markaad ilaahay ku xusuusato ood ilaahay nicmadiisa ku shukriso markaa unbaad adduunyada markaasaad ka dhargeysa markaasay ku anfacaysaa haddii kale waa ku kadsoomaysaa imaamu tirmidi wuxuu sunankiisa ku warinayaa wuxuu rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam 3 waan ku dhaaranayaa inay xaq tahay sadaqo maal ma nusqaamiso addoon intii la dulmiyo dhib loo geysto iskama cafiyo ilaahay dartii ilaa zaadahu llahu ciza intii lagu dulmiyaa iska cafiso adoo qofkaa ka aaragoosan karo ilaahay cizi unbuu kugu ziyaadin sadaqa aada bixisayna maal ma nusqaaminayso inuu ku ziyaado mooyaane addoon su-aal iyo baryo baabkeeda ma furo uu ku doonayo inuu wax ku badsado soo dhibaato haynin ayuu su-aal baaba mas'ala ayuu naftiisa ku furay ilaa zaadahu llahu faqra ilaahay faqri buu ugu ziyaadinay 3 inay xaq yihiin baan ku dhaaranayaabuu nabigu yihi wa uxadithukum xadiidan faxfaduuh xadiid baan idiin sheegaya waa idiin sheekeynayaa xifdiya buu nabigu yihi xifdiya inama dunya liarbacin adduunyada 4 bay usugnaatay rajulun aataahu llahu maalan wa cilman in ilaahay maal iyo cilmi ba isugu daray markaasuu yattaqi llaha fiih maalkaas ayuu ilaahay kaga baqaya xaqi ku waajibay oo lagu lahaayoo dhan buu ka gudayaa meeshii ilaahay ugu talagalay oo ilaahay uu raalliga ka abuu ku bixinaya fa huwa biacla almanaasil ka ugu daraja sarreey waa qofkaas qofka ilaahay uu maal siiyey cilmina ugu daray markaasuu maalka ilaahay buu kaga baqayaa xuquuqda ku waajibtayna wuu ka bixinaya meeshii loogu talagalayna wuu maranaya warajulun aataahu llahu maalan walam yucdihi cilma nin ilaahay maal uu siiyo oo aan cilmi la siinin markaasuu maalka ku tabashlaynayaa wuu ku tumanayaa fa huwa yatakhabad fi maal illah
maalka ilaahay buu yuu ku tumanaya oo ku tabashleynaya wax alla waxay naftiisu jeclaato ayuu samaynaya xuquuqda ilaahay kama gudanayo maalka ilaahay kuma adeecayo wax alla waxay naftiisu jeclaato samaynaya wuu tumanaya fa huwa biakhbath almanazil manzilada ugu xun ugu darajo xun waa kaas warajulun aataahu allahu cilman warajulun aataahu allahu maalan warajulun aataahu llahu maalan walam yu'tihi cilma waa kaa ku tumanaya maalka xoolo un baa la siiyey cilmi ilaahay ma siinin wuu ku tumanaya maalka kan saddexaad waa maxay rajulun aataahu llahu rajulun lam yu'tihi llahu maalan walaa cilman cilmina male maalna male fa huwa yaquul wuxuu leeyahay haddii ilaahay maal isiin lahaa akunu midla hada rajul ninkaasoo kalea noqon lahaa haddaa ilaahay xoolo isiin lahaa xoolaha waa ku raaxaysan lahaa meeshaan rabaan ku qusan lahaa adduunyada inta yaroo aan joogno maalmaha aan joogno saasuu leey wuxuu tamaninayaa ninka xoolihiisa ku tumanayay sida uu sameynayuu tamaninaya fa huwa biniyati kaasuu la mid yahay xoolo ma hayo laakiin wuxuu isleeyahay haddii ilaahay xoolo ku siin lahaa saas oo kalea samayn lahay fa huwa biniyatihi fa wisruhumaa sawaa dembigoodu waa isku mid warajulun aataahu allahu cilman walam yu'tihi maalan nin ilaahay cilmi uu siiyo aan maal haysanin markaasuu wuxuu leeyahay haddii ilaahay maal isiin lahaa sida ninkaa wanaagsan ee ilaahay ka baqay ee xoolaha ilaahay ugu dhowaaday sida uu samaynayay saasoo kale unbaan maalkii yani ku samayn lahaa fa huwa biniyati fa ajruhumaa sawaa labadaana waa isku mid baa ilahay leey ajirkooda yuu rasuulku ley alayhi salatu ajirkooda waa isku mid de qofka niyadiisa weeye waxa lagu tawaabinayo lagu abaalmarinayo inama alacmaalu biniyaat niyat lmari khayrun min camali qofka niyadiisaa lagu abaalmarinaya marka dee afartaa un weeye inama dunyaa liarbacin adduunyada afartaa un bay usugnaatay qofka ilaahay xoolaha iyo cilmigaba isugu daray oo meesha wanaagsan ku maray qofka cilmiga keliya la siiyey oo aan maal lahayn wuxuu leeyahay haddaan maal heli lahaa sida ninkaa wanaagsan uu samayn laha baan samayn laha niyadiisa kaana ku gaaraya isku darajo wey mid ilaahay cilmi uusa siinin oo maal keliya la siiyey maalkaasuu ku tumanaya xuquuqda kama gudanayo ilaahay kagama baqayo waa darajada ugu hooseyso iyo mid aan waxba haysaninoo cilmina lama siinin maalna lama siinin markaasuu wuxuu leeyahay haddaan xoolo heli lahaa ninkaasoo kale siisan samayn laha labadaana waa isku mid imaamu tirmidi baa xadiidkaana warinaya cibraa la doonaya walaalayaal waa in lagu cibro qaato nusuusta markaad dhegaysato axaadiista iyo aayaadka inaad dhegaysato waa cibro adduunyada maalmaha yaroo aada joogto xaalad kastood ku joogto waa inaad ku cibro qaadato cibraa la doonaya iimaan baa la doonaya nusuusta markaad dhegaysato yaqiin iyo iimaan inuu kuu ziyaadaa la doonaya inaad cibro qaadataa la doonaya maa sha allah adduunyana waa imtixaan walalayaa inaan lagu kadsoomin wey inaan lagu kadsoomin baa la rabaa waxa ugu xun waa quruurka adduunyada aada ku kadsoonto wey nolosha yar adduunyada aada joogto inaad ku kadsoonto wey falaa taquranakum alxayaatu dunya walaa yaquranakum billahi algaruur baa ilahay falaa taquranakum alxayaatu dunya nolosha adduunyada ayaysa idinkadinin ha ku kadsoomina ha ku kadsoomina baa ilahay leey walaa yaquranakum billahi algaruur midka kadada badnaana yuusa idin dhuminin waa shaydaanka yuusa idin dhuminin shaydaanku
xaamid binu lixaaf ninkii la ohan jiray iyo salafu saalixii ka mid ahaa wuxuu yidhi dalabnaa 4 min 4 faakhda'naa duruqaha fawajadnaaha fi 4 ukhraa 4 shay waxaan ka raadinay 4 waan ku gefnay buuri wadadeedii waan ku khaldanay 4 meelood oo kale aan ka helnay dalabna almaala fi lghina dalabna alghinaa fi lmaal haninimada iyo maalka yani haninimada iyo hodannimada waxaan ka raadinay maalka fawajadnaahu fi lqanaaca qaninimadii waxaan ka helnay inay qanaacada ku jirto maaha maalka waxa qani lagu noqdo maalka maaha waa qanaacada laysa alghinaa bikatrati alcarb inama alghinaa gina nafsi buu nabigu yiri sala allahu calayhi wasalam qaninimadu maaha xoolo badan inaad leedahay badeeco badan inaad leedahay yacni business fara badan inaad leedahay maaha qaninimadu inama alghinaa gina nafs waa qanaaco wajadnaahu fi lqanaaca wadalabna araaxa wadalabna araaxa raaxadii baan dalabnay yaan raadinay buu yihi fi ladaat waxyaalaha dee adduunyada tamatuceeda maxaa macaan saasaan raaxadii ka raadinay fawajadnaahu fi lbadani saxiix raaxo haddaad maqasho markaad caafimaad qabto de haddaad caafimaad haysanin wax kastoo adduunyada yaalla haddii lagu siiyo maxaad raaxo helaysaa ma jirto qofka laga yaabaa dadka ugu xoolo badan inuu xanuunsado cillad uu qabo daawona loo waayo wax alla waxay adduunyadiisa o dhan anfacaysa waxa uu haysto o dhan caafimaadkuu siisan lahaa yaa aduu helay dalabna ladaata fi الraaxati fawajadnaahu fi lbadani saxiix wadalabna yani alraaxa raaxadii baan raadinay buuri fi lmaal qofka hadduu xoolo leeyahay wuu iska raaxaysanaya wuxuu doonuu uu gadan karaa wuxuu meeshuu rabuu tegi karaa taasuu qofku is leeyahay haddii aad xoolo leedahay wax walbaa kuu suurtagelaya fawajadnaahu fi qilati lmaal raaxadu waxay ku jirtaa maalka leanna waad ka nasanaysaa haddaad xoolo badan lahayn waad nasanaysaa laakiin xooluhu hadday kaa bataan raaxo ma jirto habeen iyo dhaar ma seexanaysa fikir baa ku dilaya dadka xanuunka wada qabe xanuunka ku wada dhacay maxaa ku riday dee fikirkaa ku riday fikirka badan ay adduunyada ka fikirayaan dadka xoolaha la ugu xanuun badan dadka waa naxdinta waxaas markab ay soo rareen baa la qabsaday keliya hadday maqlaan qof markaas aga inu barashar ku dhaco naxdinta uu naxay keliya muxuu noqon doonaa buu isleeyay ma ku khasaari doontaa maalkaas mu qabsanay malka dhibaata wey wadalabna risqa fi lard risqigii baan dhulka ka raadinay inta ka doon fawajadnaahu fi samaa risqiga samada xaggeedu ka yimaada wa fi samaai risqukum wamaa tuucaduun baa ilaahay risqigiinu xagga saruu ka yimaadaa samadu inkaga yimaadaa iyo waxa laydin yabohay waxaan aada cunaysaba waa wax maqduura waxa aada helayso shaqadan aad raadinay waxa aad soo helayso o dhan waa wax maqduur ah yaqiin baa la doonaya walalayaa yaqiin baa la doonaya imaam cali ibn abi aalib maxaa wasiyaadkiisa ka mid ahaa man araada ginan bilaa maalin wa cizan bilaa cashiiratin wa haybatan bilaa suldaan falyataqi llah man araada qofkii doonayo ginan bilaa maal qaninimo aan maal lahayn dadka isaga ugu qanisan maalna maaha xoolo badana uu leeyahay iyo wax ka aqmuuda midna maaha wa cizan bilaa cashiira
cizi iyo sharaf bilaa cashiiratin qabiilna ma aha laandheeranimo iyo qabiil iyo awood ciidanood ku faanaysa maaha wa haybatan bilaa suldaan haybad lagaa cabsado lagaa haybeysa bilaa suldaanin madaxniman aan ahayn oo ninka madaxdaa waa laga cabsanaya ciidan buu leeyahay awood buu leeyahay wuxuu doonuu kugu fulin karaa waa laga haybeysanaya ninka madaxda soo ma wa haybatan bilaa suldaan saddexdaa ninkii doonayo falyattaqi llah ilaahay ha ka baqo daacada ilaahay ha ku dadaalo ilaahay cabsidiisa ha ku dadaalo fa ina allaha ya'baa an yudilla ilaa man casaa ilaahay wuxuu diiday inuu duleeyo ilaa qofka caasiye mooyaane qofka ilaahay caasiye unbuu dulligu ku dhacaya cabsida khoofka iyo dhibaatada iyo faqriga iyo dhib oo dhan ninka caasiga unbay isugu imaanaya qofka ilaahay ka cabsaday ee ilaahay daacadiisa la yimid uu ilaahay wuu cizaynaya subxaanahu watacaala ilaahay wuu cizaynaya man khaafa allah yakhaafuhu kullu shay qofku markuu ilaahay ka baqo si dhaba uga baxo makhluuq oo dhan ba asagay ka haybeysanayaan isagay ka cabsanayaan way qadarinayaan waxa qofku ku cizoobaya waa daacada ilaahay qofku wuxuu ku cizoobayo oo magac ku yeelanayo oo sharaf ku yeelanayo oo haybad ku yeelanayo waxa uu leeyahay maaha adduunyada uu leeyahay maaha madaxnimada uu yahay mulkiga adduunyada maaha waa cabsida ilaahay subxaanahu watacaala waa taqwada ilaahay ina akramakum cinda allahi atqaakum baa ilaahay allahayna waafajiye walaalayaal wadada wanaagsan wey adduunyada inta ay joogaanna kuwii yani garto wixii soo dhaafay garto oo ku cibro qaatay allahay naga dhigo allahuma arina alxaqa xaqa warzuqna itibaaca وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته